hal jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto, waxa ugu adag ee la kasbado iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo. 2 xushmad la'aan, jacaylku waa lumaa. daryeel la'aan, jacaylku waa caajis. daacad la'aan, jacaylku farxad ma leh. aaminaad la'aan, jacaylku waa mid aan degganayn. 3 goortii aad tidhaahdo waan ku jeclahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa. waa inaad ku muujisaa ficil si aad u caddayso. jacaylku ma aha qiiro keliya, jacaylku waa ficil. jacaylku ma aha dareen keliya, jacaylku waa daryeel. 4 qofka sida dhabta kuu jecel wuxuu kaa hor istaagaa inaad dembi samayso. qofka aan sida rasmiga ah kuu jeclayn wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo inaad dembi samayso. 5 dad badan oo aragtida wejiga keliya wax ku jeclaada gadaal bay ka qoomameeyaan, sababtoo ah jacaylku marnaba kama dhasho quruxda wejiga balse quruxda qalbiga. 6 intaadan qofka jeclaan marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay, haddii uusan naftiisa jeclayn adigana jacayl kuma siin karo. 7 goortii qof uu ku jecel yahay, ma aha had iyo jeer in ay afka ka sheegaan, waxaad mar kasta ka garan kartaa habka ay kuula dhaqmaan. 8 haddii qof aad isjecleedeen kaa taago, ha murugoon, ha ma tegin, ha isgubin, cuntada ha ka soomin, heeso badan ha isku maaweelin. fiiri naftaada in aad nooshahay oo neefsanayso kadibna horay u wado noloshaada. u sheeg qalbigaaga in qof kaa tegay ee aysan ruuxdaadii kaa tegin. 9 ha u beddelin midabkaaga iyo naftaada si dadku kuu jeclaadaan. ahaw qofka aad tahay, dadka saxda ah ayaa ku jeclaanaya. hal eber, dadka sida dhabta ah isu jecel si sahlan kuma kala haraan. haddii ay jirto 100 sababood ay ku kala tegi karaan, waxay helaan hal sabab ay ku wada joogi karaan.